السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada maanta iyo muuqaalka cusub fadlan intayna muuqaalka u guda galin hadaad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar oo ku soo biir asxaabteena odo YouTube haddaad ka hesho muuqaalka like saar si asxaabadu gaaro gabadh lagu magacaabo Shilin kuna dhalatay dalka China ayaa sanadkii 2016 20 wiil oo ay la sheekeysanaysay amba shukaansan jirtay mid walba waxay ka dalbatay inuu hadiyad ahaan uu keeno hal iPhone markii ay wada keeneen ayay guri ku kadatay amba ku iibsatay iPhone-adii oo dhan ninkan oo lagu magacaabo Nick Wick ayaa guri ku yaala magaalada Dakota ee koonfurta Minneapolis u dhacay balse markii uu urursaday alaabtii uu guriga uga baahnaa ayuu arkay laptop uu lahaa ninkii guriga iska leh kadibna waxa uu ka galay ciwaanka Facebook-giisa balse markii uu baxay ayuu hilmaamay inuu ka saaro Facebook-giisa laptop-ka sidaas ayayna booliisku ku soo qabteen booliiska magaalada Albuquerque ee dalka Mexico ayaa xabsiga dhigay gabadh lagu magacaabo Linda kadib markii dacwo ka timid saaxiibkeedii hore Ryan William oo saaxiibkeedii hore waxa uu ku soo dacweeyay in ay telefoonka ka wacday 2700 oo jeer ayna u dirtay 1977 email iyo 4129 SMS oo ay ku jiraan 217 heesood kadib kala tagoodii isbuuc kadib boolisku markii ay baaritaan sameeyeen waxay sheegeen in ay isticmaalaysay 3 mobile oo ay ka wacaysay goobtiisa shaqada gurigiisa iyo mobilkiisa gacanta waxay boolisku sheegeen todobadaas maalin inay kaliya isticmaalaysay daawooyin hurdada u diida iyo cabitaano ay tamar ka hesho ninka adduunyada ugu baqiilsan waxa uu ahaa America la oran jiray Paul Getty hantidiisa waxa loo qiyaasay 2 bilyan oo dollar maalin ayaa maafiya Talyaaniga waxay afduubeen wiil u dhalay sanadkii 1973 waxay dalbadeen 7 milyan oo dollar oo madax furasho ah hadaba waxa uu diray warqad uu ku leeyahay waxay haray 14 wiil oo kale hal mid waxba iga dhimaayo ee iska haysta maalin ayay maafiyadii soo sawireen wiilkiisii oo ay dhagoosteen waxayna sheegeen in lacagtii ka dhimeen 3 milyan oo ay rabaan 4 milyan oo qura wada hadal dheer kadib waxa uu ogolaaday inuu bixiyo 800 oo kun oo dollar una wiilkiisa ku talacan doono iyadoo ay saaran tahay faa'iido dhan 400kiiba Paul Getty waxa uu dhintay 1976 xoolihiisina waxa qaybsaday wiilashiisa ninkan oo lagu magacaabo Dustin Law ayaa dhamcay inuu gurigiisa ku iibiyo qiimo dhan 800 kun oo dollar balse cid ka iibsata ayuu waayay qiimaha lacagta oo aan guriga u qalmin markaa kadib waxa uu sameeyay 2 milyan oo kaarka baqtiya nasiibka ah waxaan uu halkii mid ku iibiyay $1 oo kaliya asoo waxay siin uga dhigay ku hel gurigan $1 oo kaliya adigoo nasiibkaaga tijaabinaya nasiibkiisa waxa la wada iibsaday kaarka oo dhan gurigiina hal qof ayuu siiyay xilliga balanta markii laga jaray cashuurta waxa uu soo hadhay 1 milyan iyo 700 kun oo dollar Oh my god wow sanadkii 2018 ayaa nin aan la aqoon waxa uu email u diray 100 qof isagoo sheegay inuu u baahan yahay shaqaale uga shaqeeya dhismayaal qofkiina uu saacadii siin doono $28 hadaba dadkan oo dhan waxa la belamiyay maalin Salaaso ah saacaduna ahayd 12 subaxnimo waxaana lagu belamiyay albaabka hore ee bankiga America qof walbana waa inuu soo xidhaa jaakad huruud ah maalintii balanta ayaa waxa barxadii bankiga soo buux dhaafiyay 100 qof oo shaqo doon ah isla xilliga ayaa waxa bankiga soo weeraray 2 nin oo xiran isla jaakad huruuda waxa gudaha ay galeen bankiga waxaana dhaceen lacag dhan 1.3 milyan oo dollar waxayna ku dhex orteen 100 qof oo banaanka taagnaa qoraagii buugga la yiraahdo How to Murder Your Husband sidee loo dilaa ninkaaga Nancy oo ah gabadha buugga qortay ayaa lagu xukumay dil kadib markii lagu soo helay dambiga ah inay dishay ninkeedii 5 sano ka hor wiil Chinese ah oo lagu magacaabo Liu wuxuu jeclaaday gabar ku nool magaalo masaafahan u jirta 1800 kiiloomitir markii jacaylkiisa uu sheegtay ayay ku tiri hadaad jeceshahay adoo lugeynaya imow 45 maalmood ayay ku qaadatay inuu safar lug ah ku soo aado magaaladii ku nooleed gabadhu markii uu magaaladii yimid ayay gabadhu mobilkiisa dansatay amba ay ka xidhatay Anna Nicole oo ahayd gabar 25 jir ah waxay guursatay oday 90 jir ah maal qabeen ah mar la weydiiyay sababta ay guursatay odayga waayeelka ah waxay ku jawaabtay waxa iska jeclaaday bakooradiisa iyo eegmadiisa soo jiidashada leh
sanad kadib odayga waa dhintay, hantidiisii oo gaadhaysay 1.6 bilyan oo dollar waxa uu ku qoray 2 wiil oo dhalay. Waxa uu ku dardaarmay in boqoradiisa lagu wareejiyo xaaskiisa Anna maadaama ay boqoradda aad u jeclayd. Gabadhii sidii kuma qancin ee wiilashii odayga ayay maxkamad la fuushay. Dagaal badan kadib ugu dambeyn ayada gacanteeda sun ku cabtay. siinaha in ka badan 500 oo askari ayuu toogasho ku dilay asagoon isticmaalin wax iskooba amba diidad ah. Intii uu socday dagaalkii Winter War ee u dhaxeeyay Finland iyo Midowgii Soviet, waxaana sida ugu yaala rikoorka toogashada dheer amba sniperka. Waxa lagu naanaysi jiray Waddeath amba dhimashadii cadayd. Ka waran adoo iska jiifa sariirtaada haddii neef loo ay tushaada ku soo dhacdo. Sidan ayaa ku dhacday muwaadin u dhashay dalka Brazil sanadkii 2013 kor subax ah isagoo sariirtiisa hurda ayaa waxa kor kaga soo dhacay neef loo ah oo culeyskeedu yahaa 900 oo kg. isla meeshii ayuu ku nafbaxay. Lo'diina waxa ma soo gaadhin. Baaris ay sameeyeen boolisku waxay garan waayeen meesha ay loodu ka timid. Ninkan magaciisu waa Arno Shambab, waxa uu ahaa abwaan Australian ah oo heesaha sameeya. ninkan waxa uu aad u nacba lambarka 13aad isagoo aaminsanaa inuu lambarkaasi dhibaato u horseedi doono. aad ayuuna u baasaysan jiray intuu uu noolaa si uu iska ilaaliyo inuu lambarka 13aad ku dhawaaqo. ayuu la baxay 12 ee Arnold markii uu gaaray 76 jir. ayuu maalin Jimco ahayd oo bishu ahayd 13 sanadkii 1951 ayuu go'aansaday inaanu guriga ka bixin si aanay dhibaato u soo gaarin maadaama ay bishu tahay 13. habeenkii markii la gaaray ayuu sariirtiisa ku dhintay. ninkan waxa uu ka shaqayn jiray meel dukaan ah oo lagu iibiyo agabka dumarku ay qurxiyaan, waxaana uu fadhiisan jiray qaybta labista amba rooseetada. shaqadiisu waxay ahayd meel ayuu fadhiisanayaa rooseetada amba labista ay dumarku iibsadaan ay tijaabahan u dhunkan jireen. boqorkii Itoobiya Emmanuel labaad marka uu xanuunsado waxa uu cuni jiray waraaqaha buugga Bible-ka isagoo rumaysnaa inuu ku daawoobi doono. sanadkii 1913 ayuu geeriyooday kadib markuu dhowr buug ah oo Bible ah cunay. haddii gabadh aadan qabin ay lacag weydiisato fadlan la xiriir goobta kugu dhow ee booliska oo dacwadaada u gudbi si gabadhaas loo xidho. madaxweynaha dalka Tansaaniya Samia Suluhu ayaa ragga dalkaas ugu baaqday inaysan wax lacag siinin gabadh aysan qabin. sidoo kale madaxweyne Samia ayaa ragga u soo jeedisay inay saldhigga booliska geeyaan gabadhii lacag weydiisata. fadlan hadda noo subtay subscribe sar oo soo bir asxaabteena YouTube. haddaad muuqaalka heshay like saar si uu asxaabadu gaadho. mahadsanidin.